ra-iisul wasaaraha waxa loo igmaday oo madaxweynaha uu ku wareejiyay waxa ay ahayd inuu guto waajibaadkiisa doorashada iyo sidoo kale inuu guto waajibaadka amniga doorashada ay labadaas qodob ayay ahayd waajibaadkiisa ah inuu ku igmaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu guto waajibaadkiisa balse wuu ka baxay wuxuu u gudbay arrimo kale aan loo dirsan ku badashtay sidatan bal arka fiidiyogan kaleeto si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda ra-iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay Soomaaliya wax dan ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyay in Soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ah ee Soomaaliya dalalka muhiimka waa Soomaaliya isagoo socdaal ku tagay dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada Carabta wuxuu ku badashtay meeshii laga rabay inuu doorashada iyo waajibaadkii loo igmaday inuu guto iyo sidoo kale amniga dalka ee doorashada inuu guto meeshii loogu talgalay wuxuu u tilaabay wadamo shisheeye sida dalka Kenya iyo wadamada Carabta. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. daawadayaasha qaaliga waqti kasta idin tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale video kale aad u qurux badan isku soo noqod wanaagsan waxaan idin hayaa video aad u xiiso badan waqti badan aan kala maqneen maanta waxaan ku soo laaban doonaa barnaamij aad u xiiso badan kaasoo lis dhaxmarayo oo dadka ka hadlayaan barnaamijkii u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble waxaan idin hayaa xaqiiqda saxda ee jirto arrinka ka iyo sida xaalad u socoto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma yahay wadada uu ku socdo wada saxan ma tahay wadadii loogu baahnay in uu ku keeno doorasho cadaalad ah waxaan idin hayaa video markii xilka loo dhiibayay iyo xilka uu gudoomayay maxaa loo dhiibay maxay tahay waajibaadkiisa waxaan idin hayaa video aad u xiiso badan wax kale ma ahane waa videoyadii ama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilkii uu ku wareejiyay ee ahayd inuu guto ma gutay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale waxaan ku hayaa ra'iisul wasaaraha ma gutay waajibaadkii loo igmaday mise uu ka talaabay wuxuu u talaabay shaqo aan loo dirsan ogaada qof kasto xil lagu aamino dadka qaar isku mid ma ahan markii dadka si qaar si loo fiiriyo xilkii loo dhiibto way ka soo baxaan oo waajibaadkii loogu talgalay ayay gutaan dadka qaarna waxay ka gudbaan ama ay u talaabaan xaq qabiil iyo lacag ayay fiiriyaan balse waxaan ku hayaa xaqiiqda saxda ah barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa waxaan ku hayaa oo aan raba inaan kood hor ku soo gudbiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka markuu uu ku wareejinayay muxuu yiri video ugu horeeyaan ku soo qaban doonaa bal aan wada daawano walaha sharafta leh waxaan rabaa inaan cadeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh okay ra'iisul wasaaraha waxa loo igmaday oo madaxweynaha uu ku wareejiyay waxa ay ahayd inuu guto waajibaadkiisa doorashada iyo sidoo kale inuu guto waajibaadka amniga doorashada ay labadaas qodob ayay ahayd waajibaadkiisa ah inuu ku igmaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu guto waajibaadkiisa balse wuu ka baxay wuxuu u gudbay arrimo kale aan loo dirsan balse waxaan ku hayaa markii lagu wareejinayay afkiisa ayuu ka cadeeyay in lagu wareejiyay doorashada dalka Soomaaliya sidoo kale in lagu wareejiyay amniga doorashada waxaan ku hayaa video ku saabsan markii lagu wareejinayay doorashada amniga doorashada wuxuu yiri sidatan mal ila daawo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddeedu nagu soo wareejiyay hogaaminta howlaha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka anigoo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas'uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo video was aad aragtaan oo ku gudoomayo doorashadii iyo amniga dalka ah wuxuu ku badashtay sidatan bal arka videogan kaleeto si la mid ah arrimaha diblomaasiyadda
ra-iisul wasaaraha isagoo garowsan in aanay soomaaliya wax dana ugu jirin inuu xumaado xiriirka ay la leedahay dariskeeda iyo dunida inteeda kale waxa uu dadaal ku bixiyey in soomaaliya ay cilaaqaad ku dhisan dana siman la yeelato dalalka muhiimka ee soomaaliya dalalka muhiimka waa soomaaliya isagoo socdaal ku tegey dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti sidaas oo kale waxa uu wada hadallo la bilaabay dalka kenya iyo qaar ka mid ah waddamada carabta wuxuu ku badashtay meeshii laga rabay inuu doorashada iyo waajibaadkii loo igmaday inuu guto iyo sidoo kaleeto amniga dalka ee doorashada inuu guto meeshii loogu talagalay wuxuu u tilaabay wadamo shisheeye sida dalka kenya iyo wadamada carabta sidoo kaleeto waxaan kuu hayaa xaqiiqda saxda ay ka dambeysa maxay tahay ninkani wuxuu damacsan yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wax kale ma ahane wuxuu ka shaqeynaya waxa waaye waa dantiisa iyo danta dadkiisa macnaha markaan ku leeyahay dadka dantiisa iyo dadka dantiisa markaan ku leeyahne waa shakhsiyaad u gaar ah oo siinayo lacaga ah sidoo kaleeto waxaan ku hayaa xaqiiqda saxda ay ka dambeyso in uu heshiis la gaaro heshiis afgarad ah ee dalka Kenya maxay tahay heshiiskaasi waxay tahay sidaan wada ogsoonahay Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeyo oo maxkamadda caalamiga taalo dooda badda ninkani wuxuu ka faa'iideysanaa wax kale ma ahane intuu u dhiman xilkiisa ayuu rabaa arintan inuu dhibaato badan ka abuuro laakiin ma ka gamba doono inaan soo gudbino xaqiiqda saxda ay ku saabsan in uu gutay doorashadii amniga miyuu gutay mise wuxuu gutay danihiisa gaarka ah ninkani wuxuu wada wax kale ma ahane waa danihiisa gaarka ah balse waa lagaga dabadegi doonaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble arrinkan aad wado xaqiiqda saxdana waa soo gudbi doonaa fadlan haddaad nagu cusubtahay beejkan follow dheh oo laag garay siina share garay videogan oo gaarsii akhyaartada kaleeto waad ku mahadsantahay daawadashadaada